waxaa soo galay masaajidka nabiga calayhi salaatu wasalaam axad saxaabada nabiga maxamed kamida salawaatullaahi wasalaamu calayh waqti aan salaad ahayn wuxuu arkay wiil yar oo aanan gaarin 10 sano cumrigiisa ee taaganay dukanaya weliba salaad khushuuc leh saxaabigii wuu sugay ilaa wiilkan yarka uu ka dhameystay salaadiisa kadib markuu salaadii dhameystay u yimid wuuna salaamo wuxuu ku yiri wiilkaygiyow yaa adiga ku dhalay markaasuu madaxa hoos u raaraciyay kadibna indhaha biyo ka keenay dhafoorahana qabsadoo yiri waxaan ahay agoon adeerkaygiyo waxaan ahay agoon hooyo malihi aaba malihi saxaabigii wuu u qalbi jircanaaday wuxuu ku yiri miyadan raali ku naqanaynin inaa ii naqataa wiil aniga ii sugnaaday wiilkiyaa wuxuu ku yiri adeer haddii aan baado adiga miyay quudinaayo markaasuu ku yiri saxaabiga ha adeer haddii aan dhar la'aan noqdo adiga miyaa dhar ii soo galayo marashaynaayo saxaabigaa ku yiri ha markaasuu ku yiri haddii aan xanuunsado adiga miyay caafinaayo saxaabiga wuxuu ku yiri taa arrinka anigu ma awoodi wiilkaygiyo wiilkii ayaa ku yiri haddii aan dhinta adeer adiga miyaa isoo nooleynaayo saxaabiga ku yiri wiilkaygiyo taa aniga awoodayda maahan markaasaa wiilkii ku yiri haddaba adeero iska kaydaa allihii abuuray alladii khalaqanii fahuwa yahdiin asigaa i abuura asiga i hanuunin والذي هو يطعمني ويسقين asiga i quudin asiga i warwaabin وإذا مرضت فهو يشفين haddii aan xanuunsanana asiga i caafin والذي يميتني ثم يحيين haddii aan dhintana asiga i soo nooleyn والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين asigaan rajaynayo ii dambi dhaafa dambiyadayda maalinta qiyaamaha saxaabigii wuu aamusay wuuna iskaga tegay asigoo dhahayo waxaan rumeeyey allah man tawakkala cala allahi kafaa qofkii alla weyne tala saartaana wuu ku filan yahay fasubxaana allah waa caruurtii saxaabada tawakulka ilaahay subxaanahu watacaala say u yaqaaneen ay loo baray bal ka warama xaaladda rijaalkiina maanta joogo sida ilaahay subxaanahu watacaala ugu xiran yihiin aawa geesiyadii aawa shujaaciintii oo ku barbaarinaya carruurtooda qur-aanka kariimka iyo sunnadii nebi moxamed salawaatullaahi wasalaamu calayh akhwatii ha iga hilmaamina ducada ilaahayna subxaanahu watacaala